kulan afur ah oo ay hoggaanka jaaliyaddu u samaysay odayaal haween dhalinyaro waxgarad kooban xilli uu dalka Norway fasaxay dadkiisu inay kulmi karaan ay ku jiraan dib u soo kabasho kadib xirnaan uu sababay cudurka COVID-19 ujeedka kulankan ayaa ahaa isu keenida jaaliyadaha gobolada iyo guud ahaan mideynta ummadda Soomaaliyeed ee dalka Norway gudoomiye Maxamed Cabdulqaadir Dirir ayaa furay madashan soo dhaweeyay xubnihii gobolada iyo guud ahaan martidii ka qayb galaysay waa ku mahadsantihiin dhammaantiin inaad soo ajiibteen soo ajiibteen afurkan aan ugu sameynay inaan ku iclaamino istiiraha muddada dheer la sugayay ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Norway sidaad ogtihiin dadaal dheer aan u soo galnay inay jaaliyadan cagaheeda ku istaagto oo sanado badan soo qaatay waxaan ku soo gabagabeynay 3 November 2019 doorashadii ka dhacday magaalada Oslo inuu soo baxay gudoomiyihii jaaliyadda taasi naguma filnayn waxa qasab nagu ahayd inaan sameeyno istiiraha jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Norway waliba u sameeyno qaab oo iskaga dhex arki karaan gobolada iyo degmooyinka Norway oo dhan gabdho iyo wiilalba sidaas la alligeed waxaan u gudubnay stage-kii labaad oo ahaa inaan keeno istiiro runtii matali kara jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway dhagayga marar badan waxaa ku soo noqday inaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Norway aysan kaliya Oslo ahayn sidaas la alligeed waxaan sameynay 10 qof oo istiiro ah oo 5 kamid ah ay yihiin 6 kamid ay yihiin banaanka magaalada Oslo waxaan ku guuleysanay inaan ka xulano xubno muhiim ah oo runtii bulshada u soo adeegay oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Norway oo gobolada iyo degmooyinka ku kala nool magaalooyinka waaweyn sida Tromsø, Trondheim, Fredrikstad, Stavanger, Bergen iyo magaalooyinka kale teena waaxiga ama Viking gobolkan la isku yiraahdo ee banaanka magaalada Oslo ah waxaan rajaynayaa insha Allah anagoo isku wada duuban inaanu gaari doono hadafkayaga diyaarin doonana jaaliyad rasmi ah oo mataqaana doorasho xor iyo xalaal loogu galo sanadaha soo socda hadii Ilaahay insha Allah hadaa anaga dib noo doorataan aan joogi doono hadaa cid kale u doorataana aan u fasaxi doono insha Allah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waa Fartuun Xuseen waxaan ahay qofka oo ka qaabilsan jaaliyadan insha Allah asaasnay structure-ka infrastructure-ka gudihiisa bulshada Tromsø ahay jaaliyadda Tromsø sida gudoomiyaha u fadhiya alxamdulillah sidoo Maxamed ka hadlay Norway wadan waxa waayo oo dheer Oslo kaliya ma taqaanta Soomaalida ma degna marka aad ugu farxay jaaliyadan ina meel kasta oo Soomaali Norway degan tahay in la isku keen karo hal jaaliyad aad ugu farxay Maxamed markuu isoo wacayna aad taas ugu farxay waxaan rajeynaa insha Allah shaqo fiican inaan sameeyno shaqo rasmi oo qof kasta ma taqaanta Soomaali kasta Norway degan wax fiican u noqon doono caaw haween taariikhi ah haween aan in badan sugeynay xaqiiqatan haween 4 bilood jirsaday laakiin ugu dambeyn ku guuleysanay inaan aan soo gabagabayno mar alla markii maamul la sameeyay maamulku waa inuu farac yeeshaa faracii uu yeeshay ayaan caaw rabnaa inaan dhamaystirno haddii Ilaahay qadaro sidaan ka warhayno dhamaantayada November 2019 ayaan sameynay maamulkan oo ay Soomaali ka badan 1200 oo qof ay u codeysay inaan noqono jaaliyad Soomaaliyeed oo ka dhisan Norway taas oo matali doonta dhamaan ururada localka matali doonta dhamaan tiimamka gaarka ee Soomaalida ee magaalo walba ka jira taa oo wada shaqeyn buuxa la yeelan doonta isku xirna u noqon doonta Soomaaliya iyo Norway haddii Ilaahay qadaro waxaan rajaynaynaa biidhnillaahi tacaala inaan noqono dad u adeega Soomaali ku abtirsada Soomaali u shaqeeya Soomaali doorashadii la doortay gudoomiyaha goobjoog baan ahaa dadkii ugu badnaa ee Soomaaliyeed ee isu yimaada intaan joogay Norway bay habeenka ahayd meelaha waxa ka badan maagaan marka fanaaniintu heesayso markaana ma tago anigu markaas laga yaabay in dadku badan yihiin laakiin shir la isugu yimaado kii ugu badnaa buu inta Norway joogay waan ku faraxsanahay inuu Maxamed
soo dhisay guddi uuna soo dhisay guddi aad moodid inaan noocii aan doonayay ah. anigu waxaan doonayay oo aan rabaa inay xilka la wareegaan kuwa new generationka, kuwa halkan ku koray ama ku dhashay ee wax ku bartay halkan baan doonayaa inay mas-uuliyadda Soomaalida la wareegaan. maamulkan Soomaalida loo sameeyay waxaan dhihi karaa waa kii ugu horeeyay oo gaarsiiyay gobolladoo dhan. awal hore waxay ahaan jirtay magaalo kasta iyo gobol kasta iyo tuulo kasta waxay lahaayeen maamul u gaar ah oo isku marka maadaama aad samaysay ambassador fadhiya gobolladoo dhan oo centralkuna oo isla yahay waa wixii ugu horeeyay oo Soomaali ay ku midowdo. ummadana sideedaba waxay qoomiyadana waxay dad ku yihiin inay midoobaan. marka taas oo kuugu hambalyeynaya waxaan rajaynayaa maadaama aan nahay dad ku xiran wadankii oo maarta roob Soomaaliya ka da'ayo annaka noo da'ayn aan daladiisa iska wadano. waxaan rajaynayaa in laga baxo kala qoqobnaanta iyo gruubka oo la noqdo dad midaysan. waad dadaashay ilaahna ka ajarsiiyo hawsha aad qabatay. sida ay dadkii iga horeeyeen ay sheegeen hawshani waa hawl unique ah oo hal mar la isku keenay dad matalaya gobolada dalka. marar badan ayaa la isku dayay jaaliyad in la sameeyo suurtageli weysay. jaaliyadii ugu horeysay oo guul noqota waxay ahayd 2002 ama 2001 meelahaas ahayd. dhalinyaro aqoon-yahaniin baa isku tagtay oo mid ka mid ahaa uu ahaa wasiirka hore waxbarashada dalka Master Cabdiraxmaan, midna hadda uu yahay Prime Ministerka dalka Xasan Khayre ayaa jaaliyad abuuray.